السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا مهتمين مانت واسنين واللباتنك جانوري بيش كوبات سنة كلابا كوني شان يلباتنك ومالنتي سيدا وين لو سوغيي أو ترام لدارينيي مدحوينه دونالد ترام waa la daariyay xukunkana waa uu la wareegay marka maanta qodbadii uu jeediyay muxuu ka yiri arrimaha xadka masaafuriinta arrimahaasi ayaan rabaa inaan idin la wadaago daarintiisii iyo madaxweyne Joe Biden oo qaar kamid ah qoyskiisa daqiiqada ka hor inta aan la daarin afis u fidiyay iyo qaar kamid ah xubnihii guddigii January 6 iyo Dr. Anthony Fauci iyo xubno badan ayuu afis u fidiyay sidoo kale waan idin la wadaagaya aan ku bilaabo Donald J. Trump si rasmi ah ayaa loogu dhaariyay xilka madaxtinimada Mareykanka 4 sano ee soo socota waxaana uu noqday madaxweynihii 47 ee Mareykanka horey waxa uu soo noqday madaxweynihii 45aad 2016 ilaa 20 mar labaad ayaa la doortay marka madaxweynaha 47aadna waa yahay kii 45aadna waa uu soo ahaa JD Vance ku xigeenkiisa madaxweyne ku xigeenkii 50aad ee wadanka loo dhaariyay ayaa sidoo kale uu isaguna noqday Trump waxaa xafladiisa daarintiisa ka soo qayb galay mas'uuliyiin aad u fara badan walow gudaha aqalka Congress-ka loo uu jimcihii u wareejiyay maadaama qabow daran uu ka jiray magaalada Washington DC ee caasimadda Mareykanka laakiin taageerayaashiisa jalbaysan qabowgaasi waxba ma uusan ka dhibaynin oo garoon u dhow ayay ka daawanayeen isla markaana loo ogolaaday inay ka daawadaan maadaama ayna banaanka aan la joogi karin oo qabowku si aad ah u darnaa xubnaha ka soo qayb galay waxaa kamid ah oo madaxweyne ku xigeenka wadanka Shiinaha isla markaana ah sidoo kale la taliyaha madaxweynaha wadanka Shiinaha oo la yiraahdo Han Shen sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xubno madaxa oo Trump si aad u taageero oo ay kamid tahay ra'iisul wasaaraha wadanka Talyaaniga Giorgia Meloni iyo madaxweynaha wadanka Argentina Javier Milei oo iyaguna si weyn u taageera Trump laakiin qaar kamid ah xubnaha Congress-ka ee Republican-ka ayaa waxay si aad ah uga caroodeen in iyaga kuraasta dambe la geeyay xubnihii maalqabeennadiina VIP laga dhigay oo kuraasta hore la fariisiyay xubnaha maalqabeennada ah ee ka soo qayb galay oo Trump uu ku casuumay xafladiisa caleemasaarka iyaguna lacaga ugu deeqay xafladan ayaa waxaa kamid ah Elon Musk waan ognahay waaba ninkii soo saaray xagga iska dhig waxaa sidoo kale kamid ahaa xubnaha kale ee ka soo qayb galay ninka iska leh Amazon Jeff Bezos iyo waliba xaaskiisa ninka Google madaxda ka ah Sundar Pichai ninka TikTok madaxda ka ah Xu Jiu oo Trump shalay TikTok uu dib u soo celiyay ninka madaxda ka ah OpenAI sidoo kale ninka Apple iska leh oo isagana Tim Cook la yiraahdo dhamaanba xubnahaasi waa xubnaha kuraasta VIP-da la fariisiyay ee ka soo qayb galay xafladda caleemasaarka ee Trump Kamala Harris sidoo kale waa ay ka soo qayb gashay oo madaxweyne ku xigeenka 49aad ah Trumpna uu doorashada kaga guuleystay odageeda Doug Emhoff madaxweyne Biden waa joogay xaaskiisa Jill madaxweynayaashii hore sida Bill Clinton George W Bush iyo Obama xaaskiisa Michelle maysan la socon laakiin Clinton iyo Bush xaasaskooda waa ay la socdeen iyaguna waa ay ka soo qayb galeen marka sidaasi ayaa xafladdu ay ahayd ka soo qayb galkeeda Trump waxa uu doortay in lagu dhaariyo Bible lagu dhaariyay madaxweyne Lincoln ayna xilligii dagaalkii sokeeye wadanka uu dhamaanayay 1861 ayuu doortay marka Bible-kaasi ayaa lagu dhaariyay marka hore waxaa la hor dhaariyay madaxweyne ku xigeenka JD Vance oo xaaskiisa uusha ay Bible-ka ay u haysay gabadheedu ugu yarna sidoo kale garabka ay ku sidatay waxaana dhaariyay mid kamid ah garsoorayaasha 9ka ee maxkamadda sare oo la yiraahdo Brett Kavanaugh waa kan markii la dhaarinayay madaxweyne ku xigeenka JD Vance bal ila daawada Please raise your right hand and repeat after me. I, James David Vance, do solemnly swear. I, James David Vance, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith. That I will bear true faith. And allegiance to the same. And allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. Or purpose of evasion. Or purpose of evasion. And that I will well and faithfully discharge. And that I will well and faithfully discharge. The duties of the office. The duties of the office. On which I am about to enter. On which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President.
markaasi kadibna waxaa la dhaariyey madaxweyne Donald J Trump oo noqday madaxweynaha 47 ee Mareykanka waxaana sidoo kalena Bible-ka u hayay xaaskiisa Melania iyadoo aysan meel ka fog aysan fadhin madaxweyne Joe Biden iyo waliba Kamala Harris oo tartanka kaga guuleystay waxaana dhaariyey gudoomiyaha maxkamadda sare John Roberts waana tan markii Trump la dhaarinayay. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Trump markii la dhaariyay kadib khudbad ilaa iyo 30 daqiiqo ah ayuu ka jeediyey meesha ay ka dhacaysay xafladda caleemasaarka. Trump waxa uu sheegay marka uu ku laabto aqalka cad in uu soo saari doono wareegtooyin kala duwan kuwaasi oo uu ku bilaabayo dhammaanba in uu dib ugu soo celiyo Mareykanka isla markaana waxa uu sheegay in wareegtooyin kala duwan ay noqon doonaan. Waxa uu yiri wareegtada ugu horeysa waxay noqon doontaa inaan xaalad degdeg ah uga dhawaaqo xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico. Biden ayaa la arkayay sidoo kale oo ag fadhiya isla markaana afka gacanta ku haysta oo qoslaya marka Trump uu sidaasi dhahayay. Waxa uu sidoo kale sheegay in soo gelitaanka sharci darrada ah ee Mareykanka uu gabi ahaanba si degdeg ah ku joojin doono. Waxa uu sidoo kale sheegay in uu bilaabi doono boroseska dib loogu celinayo malaayiin qof kuwaasi oo dambiilayaal ah halkii ay ka yimaadeenna dib loogu celinaya ayuu yiri. waxaan dib u soo celinaya ayuu yiri sidoo kale siyaasadeedii remain in Mexico oo ah dadka dhinaca Mexico in lagu celinayay ilaa iyo maxkamadaha ay kiiskooda magangalyadoonka ay go'aan ka gaarayaan. waxaan sidoo kale soo gabagabeynaya ayuu yiri siyaasadii ahayd catch and release maamulka madaxweyne Joe Biden waxa ay sameynayeen catch and release waxa la yiraahdo qofka marka la qabto in wadanka hore looga soo daaynayo. marka Trump siyaasadiisu waxay ahayd catch and deport qabo ee masaafure. marka siyaasadaasi labadaas siyaasadood ayaan dib u soo celinayo remain Mexico iyo waliba siyaasadda aan soo gabagabeynayo oo ah catch and release la markaana aan soo celinayo catch and deport. waxa uu sidoo kale sheegay inuu ciidamo u diri doono xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico si ay u ka hortagaan ayuu yiri in soo gelitaanka ama weerarka burburka leh ee Mareykanka lagu soo qaaday oo sida sharci darrada loogu soo galayo. waxa uu sidoo kale sheegay in uu u aqoonsan doono kooxaha daroogada ka ganacsada in ay yihiin ururo argagixiso oo ajnabi ah ayaan u aqoonsanaya ayuu yiri. sidoo kale waxa uu yiri waxaan adeegsan doonaa sharciga la yiraahdo Alien Enemy Act kaasi oo la sameeyay sanadkii 1798 waxaanan ku amri doonaa ayuu yiri dawladda in ay awoodeeda buuxda ee ugu dambaysa dawladda federaalka iyo gobolladuba ay isticmaalaan si ay u ciribtiraan joogitaanka dhammaanba kooxaha gaangiska ee ajnabiga iyo dambiilayaasha kuwaasi oo dambiyo dhibaato weyn u geysanaya dhulkeena u geystay magaalooyinkeena kala duwan. waxa uu sidoo kale sheegay in asaga ka taliya ciidamada guud ee Mareykanka ahaan in mas'uuliyad ka sareyso oo saaran aysan jirin oo ahayn in uu ka difaaco wadanka inaan ka difaaco wadanka ayuu yiri qataraha iyo weerarada lagu soo qaado. taasina waxay tahay exactly waxa aan sameyn doono ayuu yiri waxaanan u sameyn doonaa si aan weligeed horey loogu sameynin. marka Trump sidaasi ayuu ku sheegay khudbadiisa marka isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri Today I will sign a series of historic executive orders. With these actions we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy.
I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. We'll also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going ayaa sidoo kale sida caadiyan ah madaxweynuhu markuu xilka ka degayo midka xilka la wareegayo waraaq ayuu u reebaa marka Biden waxa uu sheegay inuu waraaq u reebay oo aqalka cad ugu reebay Trump mar warbaahintu ay weydiiyeen maxaa ku qoran waxa uu yiri aniga iyo Trump ayaa arintaasi noo dhaxaysa marka wareegtooyinkan Trump waxa uu saxiixin doonaa galinka dambe ee maanta markuu aqalka cad uu soo fariisto xafiiska Oval Office-ka waxaana la filayaa wareegtooyin kala duwan ilaa iyo 50 ah inuu maanta saxiixi doono waxyaabaha oo ku qoranna waan idin soo gudbin doonaa dhinaca kale ugu dambeyntii Biden ayaa 15 daqiiqo ka hor inta aan loo dhaarin Trump xilka madaxtinimada waxa uu soo saaray cafis oo u fidinayo qaar kamid ah qoyskiisa aadka ugu dhow cafiskan oo sida hordhac ah waxa kamid ah dadka uu u fidiyay walaalkiis James Biden iyo xaaskiisa Sarah Jones Biden waxa sidoo kale kamid ah walaashiis Valerie Biden iyo odageeda oo la yiraahdo John Owens waxa sidoo kale kamid ah walaalkiisa ugu yar oo isagana la yiraahdo Francis Biden oo cafis u fidiyay Biden waxa walaalkii ayaa sidoo kale xubnaha Republicanka baaritaanka isaga ay ku wadaan Biden oo xilka qaadista ay soo galiyeen sidoo kale waa ay wareysteen Biden waxa uu yiri sababta cafiskan qoyskayga ugu fidiyay waxay tahay weeraro iyo hanjabaado aan kala joogsi lahayn ayaa la soo gudboonaanayay waxana ay muhiimadu ahayd in aniga la igu dhaawaco waxana uu sheegay in siyaasad loo adeegsanayo nooca ugu xun ee siyaasadda ayna ahayd arrintan inaysan istaagin markaan arkay ayaan qoyskayga cafiskan u fidiyay ayuu sidoo kale leeyahay Biden waxa uu sidoo kale cafis u fidiyay General Mark Milley oo generalkii ciidamada guud xilligii Trump oo madaxweynaha hogaaminaya Dr. Anthony Fauci oo nagna xilligii coronavirus-ka Trump inay isku dhaceen waxa sidoo kale kamid ah Liz Cheney oo guddiga January 6 ku jirtay Trumpna si aad uga soo horjeesatay iyo xubnihii kale ee guddiga January 6 ee baaray Trump sidoo kale ku jiray Biden waxa uu sidoo kale December 39 cafis oo kala duwan bishii December inuu soo saaray 1500 qof oo maxaabiisana oo sidoo kale cafis u fidiyay waxa qaar kamid ah xubnaha Republicanka ay ku tilmaameen cafiska Biden qoyskiisa oo u fidiyay inay muujinayso in ay dambiilayaal yihiin oo ay guilty dambi ku leeyihiin qaarkoodna waxa ay yiraahdeenba waxay muujinaysaa musuqmaasuqa familka Biden ka dhex jiray in cafiskaasi uu muujinayo inay dambiilayaal yihiin Jim Roy oo kamid ah xubnaha Republicanka ah oo Texas laga soo doortay iyo Marjorie Taylor Greene ayaa kamid ah xubnaha yiri waxay cadeynaysaa Biden cafiskan uu fidiyay qoyskiisa in qoyskiisu ay dambiilayaal yihiin Trump sidoo kale wareegtooyinka maanta uu saxiixi doono waxa kamid ah dadkii Congress-ka weeraray January 6 sanadkii 2021 oo la xukumay inuu doonayo in isaguna uu cafis u fidiyo wareegtooyinka maanta uu saxiixayo ayay ku jirtaa wuxuu leeyahay dadkaasi waa maxaabiis gardarro ayaana lagu haysto ay ku xiran yihiin oo lagu xukumay waxyaabaha kale ee soo kordha haddii alla idmo oo Trump wareegtooyinka uu saxiixi doono waa idila soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo